Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka Samna Kasta Official. Fadlan channelka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelkana furo si mar kasta ay kuu soo gaaraan warbixinada aynu kaga diyaarino aflaamta markaa soo baxaya ama kuwa xilliga cusub. Saaxiib waa ku mahadsan tahay haddii aad hore noola joogtay channelka. Waxaan ka codsanaynaa muuqaalka inaad like garayso sidoo kalena sii share garayso si uu u gaaro saaxiibo badan. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa filimka Pathaan uu hogaamiye ka yahay superstar Shah Rukh Khan, halka ay tirisho koowaad ka tahay xigta lagu magacaabo Deepika Padukone. Sidoo kale filimkan waxaa la awood badan ku matalaya ninka lagu magacaabo John Abraham, halka ay garab siinayaan labada superstar ee Salman Khan iyo ninka lagu magacaabo Hrithik Roshan oo filimkan door kooban ka qaadanaya ee garab siin doona ninka lagu magacaabo Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan oo filimkan ku matalaya nin sirdoon ah, halka ay ku matalayaan Shah Rukh Salman Khan iyo Hrithik Roshan laba sirdoon oo garab siinaya, iyadoo filimkan ka qaadanaya doorkoodii Kabir iyo Tiger. Waana filim si weyn loo sugayo maadaama rag waaweyn la isugu keenay. Sidoo kale filimkan wuxuu kaloo xiiso u yeelay inuu SRK kusoo laabanayo saaxadda aflaamta maadaama uu ka maqnaa muddo 4 sano ah, haddana dib ula soo laabtay filim kale oo xiiso badan. Filimkiisii ugu dambeeyay waxaa mashruucii lagu magacaabo Zero oo soo baxay sanadii 2018, kaasoo ka noqday flop ama film disaster oo burbur ayuu ka noqday. Balse hadda 4 sano kadib waxaa la yimid mashruuca lagu magacaabo Pathaan. Sidoo kale filimkan waa filim kale oo xiiso badan filimkan sidoo kale goobo tayo leh ayaa lagu duubay maadaama uu yahay filim sirdoon ah. Filmaanta sirdoonka inta badan waxaa lagu duubaa meelo Hindi ka baxsan si ay markaas u soo jiitaan indhaha daawadayaasha ama taageerayaasha u leeyahay markaas SRK. Qaybaha marka lagu duubay filimka waxaa ka mid ah sida Imaaraadka iyo Yurub meelo ka mid ah. Sidoo kale filimkan waxaa directorkii agaasimay ama sameeyay filimkii War. Sidoo kale magaciisu waxa weeye Siddharth Anand. Haddana wuxuu la yimid mashruuca lagu magacaabo Pathaan. Sidoo kale waxaa soo wadaa mashruuc kale oo xiiso badan kaasoo lagu magacaabo War 2. waa qaybtii labaad ee War, waxaana hogaamiye ka ahaa Hrithik Roshan. Haddana labada filim ayuu soo wadaa, waana directorka looga haray inuu sameeyo sheekooyinka markaas sirdoonada. Sidoo kale waxa uu soo wadaa filimka lagu magacaabo wuxuu sameynayaa filim kale oo iskugu imaanaya ninka lagu magacaabo Salman Khan wuxuu sameyn doonaa filim ee markaas xiisaha badan. Sidoo kale shirkadda ay maalgelinaysa filimkan waa Yash Raj Films oo hore u sameysay taxanaha Tiger iyo filimka War. Marka garab weyn ayay siinaysaa shirkadda Yash Raj Films, garab weyn ayay siinayaan nimanka lagu magacaabo Salman Khan iyo Hrithik maadaama ay filmo classic ay u maalgelisay guulo waaweyn gaaray. Haddana garab ayay siinayaan ninka lagu magacaabo Yash Chopra oo ah madaxa Yash Raj Films. Sidoo kale filimkan waxaa la daawanayaa dhamaadka January 2023 ama 25 January, markaas ay u dabaaldegayaan toddobaadka xorriyadda dhankaas Hindiya. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like noo saar, sidoo kale wixii faahfaahin ama fariin wax noogu soo diri doontaan dhanka commentiga. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.